magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga waxaa tababar loogu soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana munaasabadan ka soo qayb galay saraakiil iyo mas'uuliyiin ka socday dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay ciidamadu dowlatus ku muujiyeen tababarkii khaaska ahaa ee halkan ay ku qaateen سرية قوتو محمود حسين كربي وقيبسمها سفارة صوماليا اي ارمها عيدا مضى ومناسبة قوتو كاها ايا كهدل حفلة قيمها اي قايها له ما انت انك سو قيب قالي waxaan ka idinku soo gudbinayaa hambalyo iyo bogaadin aan idinkaga sido dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ergada wadanka Turkiga u fadhida dalkan ee Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan dawladda Soomaaliyeed anigoo ka wakiil ah waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay sida dhabta ah jiritaanka amni qaran ee ummadu leedahay waxa uu ku askunma awood ciidan wadankeena oo maanta kabasho ku jira doonayana inuu dib u hanto awoodiisa ciidan midii bariga iyo midii badda iyo midii hawadaba waa bilow wanaagsan oo hididiila leh sanadii la soo dhaafay in ay kobcayaan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna aanu helayno dhig cusub iyo dhalinyaro cusub ee maalin walbaba loo sameeyo tababaro casri ah si ay u hantaan amniga iyo xasiloonida iyo nabadgelyada wadankooda hooyo sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed waxay hambalyo iyo bogaadin siinaysaa dawladda Soomaaliyeed ba dalka Turkiga dawladda Turkiga iyo shacabka Turkigaba dadaalka aan kala go'an lahayn iyo kaalmada aan kala go'an lahayn iyo hiilka ay u sameynayso maalin walba habeen walba ummadda Soomaaliyeed si ay uga kabato burburka ka soo gaara dhismaha ciidankooda qaran si ay dib ugu hantaan awoodii ciidan ee dalkayna lagu yaqiin bari samaadkii tan waa bilow wanaagsan waxaan leeyahay dhalinyarada halkan tababarka ugu dhamaaday ee sharafta badan guul iyo wanaag iyo horumar ayaad umadiina u qaadaysan waxaan rajo weyn ka qabnaa in aad markaad ku laabataan wadankiina hooyo aad buuxin doontaan baahiyaha amni ee ka jira guud ahaan geyiga Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed waxay ku faraxsan tahay iyo madaxda qarankuba in xilliyadii sanadihii la soo dhaafay ay yagleelayso ama dib u yagleelayso dhismo dhalinyaro cusub oo ciidanka qalabka sida ku soo biiraya dawladda Turkigu waxay door weyn ka qaadatay dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waana saaxiib dhow oo dhinacyo badan oo muhiim ah ka taageera dalkeena Soomaaliya Axmed Abdulqaadir Ismaaciil Axmed Daruush magaalada Ankara